waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ahay haweeney Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa laakiin la socota xaaladaha wadankeeda kala socota media waxa aan aad ula yaabay oo mucjiso ugu noqotay shalay toole markii ay baarlamaanku isku dhaganayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya waxaan idin weydiiyay asluub daradaas dadka ay ka dhex aloosan tahay oo aanan awoodin in ay xitaa kala qaybsadaan ama anshax u fariistaan oo wada hadlaan anagu idima garanayna daana ummadda Soomaaliyeed idinka ayaa soo maamusay oo ka soo dhameystay qaramada midooba inaad anagu dawlad nootiin qaramada midooba sidaas ayay idinku siisaa salarigiina idinka oo aan isku dayin xitaa sida aad uga bixi lahaydeen gacanta qaramada midooba oo dalka dib loogu soo celin lahaay hay'adihiisa dhaqaale ayaad foolxumo aan hore loo arkna adduunyada oo aan waqtigan ka jirin oo kaliya ka dhacda meelaha dadka waalan isugu yimaadaan ayaad ka sameysay baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya markuu wadanka madaxweyne ka noqonayay wuxuu noo ballan qaaday inaan dalka u soo noqono dhisno maxaan dal dhisnaa idinkii baaban dhisnayn oo laydin ka naxayaaba sida u taaliin iyo habka u shaqaynaysiin iyo goobta foolxumada ka jirtay waxay u egtahay goobaha dadka waalan degan yihiin ee xataa aan dawo iyo waxba lahayn uma eka xataa goob dad waalan degan yihiin oo habaysan oo dawooyinkeeda iyo dhaqaatiirkeeda leh laakiin wajigaas markaan aragno wuxuu ekeed meel disaster ah marka idinka aad ka soo baxdeen goobtaas Uganda isku idinku waardiyeynayo goobta dibadda kama tagi kartiin haddaad 5 daqiiqo socotaan waa laydinku dili haddana sidaas u dhaqmaysiin yaad u maqantiin ummad Soomaaliyeed uma maqnidine maxaad isdamacsantiin halkaas ayaa ummadda Soomaaliyeed